ka dhagaysa raadiyo xorriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faallooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xorriyo codka shacabka ogaadeeniya qaar ka mid ah culimo awdiinka u dhashay ogaadeeniya ee ku dhaqan waddankaasi Kenya ayaa shir ku yeeshay magaalada Garissa oo ay kaga arrinsanayeen xaaladaha qalafsan ee ka taagan waddanka Ogaadeeniya wacyigelin ku siinayay shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee halganka adag kula jira xukuumadda gumaysiga Itoobiya ee muddooyin badan soo gumaysanaysay. haddaba shirkaasi markii ay ka baxeen culimada Ogaadeeniya ee ku dhaqan waddankaasi Kenya siba magaalada Garissa ayaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah shirkoodaasi waxa uu ku saabsanaa waxaana hadda khadka telefoonka ee raadiyo xorriyo si toos ah ugu jira Sheekh Maxamed Faarax oo ka mid ah culimadaasi. Sheekh Maxamed Faarax ku soo dhaw raadiyo xorriyo. waan ku soo dhawaad ku maqla Cabdulla. Sheekh Maxamed waxaad shir ku qabateen magaalada Garissa oo aad ugu qabateen xubnaha ururka ONLF iyo shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee ku dhaqan magaaladaasi Garissa. shirkaasi ujeedadiisu maxay ahayd? shirkaasi wuxuu ahaa sidii culimaa udiinka reer Ogaadeeniya wacyigiisana kor loogu qaadi lahaa abaabul la aad loogu samayn lahaa isagoo culimaa udiinka aan istusnay inuu magaranaysaa saaxada sideedaba aad u maqan yahay iyo inuu magaranaysaa aan isweydiino waxa naga maqan iyo waxa aan ku jiraa wuxuu yahay aan soo qeexan oo soo cadeyna sidaas ku saabsana. shirku ma wuxuu ahaa shir aad ugu tala gasheen culimada Ogaadeeniya ee ku dhaqan aagagaasi mise shir aad u qabateen shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee ku nool magaalada Garissa ah? hadda maanta shirku wuxuu ahaa shir culimada aan ugu tala galay si gaar ahaaneed saas ah shirku. marka ka soo qaybgalayaashii maanta waxay ahaayeen kaliya culimada Ogaadeeniya ee ku dhaqan aagaas. culimada Ogaadeeniya ku dhaqan Garissa ahaayeen kaliya. waxa aad tabaysaan ee aad culimada maanta u shiriseen ama iskugu yeedheen ee awal hore aan la tabaynin muxuu ahaa? wuxuu ahaa untabaynaa culimadu inay sideedaba aynan abaabulayn oo ay saaxada culimo ahaan uga maqan tahay iyagoo la rabay in ay dadka hogaanka u qabtaan oo ay dadka ka dhex muuqdaan oo dadka hortiisa taagan yihiin inay dadka daba socdaan oo aynan muuqaninba baanu istusnay. in badan baa lagu eedeeyay culimada Ogaadeeniya iyo aqoon-yahanka Ogaadeeniya inay ka maqan yihiin saaxada halganka oo aysan dadkii wacyi gelinayn ama ka qayb qaadanaynin ba halganka loogu jiro xoreynta Ogaadeeniya. maxaa keenay hadda xilligan xaadirka inaad baraarugtaan ama aad dib boorka iskaga jabtaan? waxaa keenay waqtiga ayaa loo bislaaday oo waqtigiiba in badan kolkaan ku soo jiray ayaa waxaan isweydiinay culimadii maxaa ku dhacay culimadu maxay u muuqan lahayd ayaan isweydiinay marka sidaasaa keentay iyo maamulka hadda ka jira jaaliyada Garissa ka dhasan oo isaguna arrintaas u guntaday. waan gartay Sheekh Maxamed waa markii ugu horeysay aan filayo in magaaladaasi Garissa dhaqdhaqaaq noocaas oo kala aha oo culimada ay u istaagayso halganka Ogaadeeniya oo ka bilowday. culimo intee leeg baad iskugu timaadeen hadda meeshan ma culimadu waa weyn baa mise waa culimo yar yar oo dadka shabaabka hadda soo kacay? culimadu shabaabka laakiin odayaalna waan ku jiraa aniga kula hadlayada min odayaan iyo ninkay ka fadhi iyo odayaalna way ku jiraan laakiin shabaabkay u badan tahay oo dhalinyarada u badan tahay culimadu. ma aqbalaysaan mase ogoshihiin in culimada Ogaadeeniya ay saaxada halganka ka maqnaayeen intii halganka lagu jiray oo ay la farmuudka ka ahayd? ma aqbalaysaan eedayntaas? aqbalayna waana aragnaa waana waxa hadda aan ku hadlayno u fadhinaba arrintaa. waa tahay Sheekh Maxamed maxay tahay tallaabada xigtay hadda aad qaadaysaan? hadda culimadii baa is aragtay, kuwii dhalinyarada iyo kuwii weynaa waa is aragteen, arrimihii waad gorfayseen. boodkii culimada Ogaadeeniya looga baahnaa ee wacyigelinta dadka aha iyo dadka in lagu hanuuniyo la tuso la garwaaqsiiyo halganka inay ka qayb qaateen waa iska aragteen maanta. tallaabada xigtay maxay tahay? tallaabada ku xigtay qaadayna waxaa weeye inaan wixii laga qabanayo kalena arrinta gaarsiino abaabulkana aanu sii wadno aanan ka daalin habeen iyo maalin si aanu arrinta iyada kor ugu qaadno waan sii wadayna haddii alla idin. waa tahay culimada kale ee ku dhaqan magaalada Garissa ee Soomaalida Kenya oo kala aha arrinta ma kala hadasheen ma ku baraarujiseen wax ma uga yeerateen mase idin ku jirtaa mustaqbalka inaad gaarsiisaan? way ku jirtaa waa arrinta kow aan u fadhinaba. waan gartay Sheekh Maxamed waa arrin ugub aha waa arrin cusub waxaa in badan aan maqalay ama dhacdayba culimada Ogaadeeniya ka soo jeeda qaarkood baan idhaahdayana wada dhihine inay si toos ah halganka uga soo horjeedaan
ama dana shakhsiyeed ha ahaato ama dana gaara ha ahaato ama dana siyaasadeedba ha ahaato oo aad laga yaabo qaarkiinba in aad dhex joogtaan kuwii ee ka soo horjeeday sida cad uga soo horjeeday culimada maxaad kala hortegaysaan maxaad shacabka u sheegaysaan culimada waxaanu kala hortegaynaa oo shacabka u sheegaynaa inay iyagu saaxada ka baxeen oo arrintoodii hore ay soo gudhayba shacabkuna uu si fiican u fahmo si fiican baa u arkay haddana ay ma garanaysaa iyaga laftooda inaanu soo abaabullaan u rabnaa iyaga laftooda inaan saaxada soo gelin ma iyagiiba usoo gelinaysaan waan abaabulaynaa waan hanuuninaynaa way qaldameen oo way dambaabeen dembigan toobad keeno ilaah u noqdaan odhanaynaa waan soo hanuuninaynaa asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh magacaaga saddexan محمد أحمد باري weli dhegaystayaal faray kama qodno culamaa u diinkii kasoo qayb gashay shirka ka dhacay magaalada Garissa ee u dhalatay Ogaadeniya sheekh kusoo dhawow Radio Xurriyo waan ku dhawaay sheekh Maxamed Axmed aad baan kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka shirkan iyo weliba xogtan iyo macluumaadkan aad siinaysa Radio Xurriyo ee shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee ka dhagaysanaya hawadaba shirkiina maanta Garissa aad ku qabateen sidii hore igu sheegay Sheekh Faarax wuxuu ahaa shir aad ugu tala gasheen in culimaa u diinka Ogaadeniya meel kastoo ay joogaanba ay fadhiga ka kacaan oo ay kaalintooda buuxiyaan kaalintii markii horeba ay gabeen tallaabooyinka hadda mustaqbalka aad qaadi doontaan sida degdeg aad u qaadi doontaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah dadkan abaabulo oo iyo dadka la khalday oo nusoo way u sheegno inaan waxaas una waxba ka jirin dadka la khalday waa kuwe ma shacabka mise culimada laftoodii culimada shacab la khalday wuu jiraa oo loo tusay in jamada oonka Ogaadeniya in halgeedka ku jirta inuu nahayn xaq jihaad inuu nahayn shacabka yaa khalday culimo idinka oo kala khalday culimadaasi fatwadii ay fidiyoonayeen iyo waxyaabihii ay soo daliishanayeen miyay ku khaldan yihiin yaa khalday shacabka dad culimo sheeganaya khalday oo kolka horeba inaga soo horjeeday culimada kuwe waa kuwii Soomaali galbeed taasi waa nimankii xarooda Ethiopia isu dhiibay waan gartay sheekh halganka oo la garab istaaga cilmiga Ilaahay oo idin baray waa hawl adag waana hawl muhiim ah weeye hawl sida aad u bilowdeen maanta in looga soo baxo u baahanna weeye tabaabushayti intee la eg baad u leedihiin iyo adkaysi intee la eg baad u leedihiin ama diyaar garow intee la eg baad u diyaar garoodeen hawshaas inaad ka midho dhalisaan oo meesha u dambaysa aad geysaan insha Allah ilaahay baan ka rajeynaa inuu la garaqto wuxuu ilaahay un bay hawsha ku xidhan tahay annaguna isku xidhanaa annaguna waan u diyaar garownay in hawsha hadii alla ka bada dhalino assalaamu alaykum wa alaykum asalaam sheekh kusoo dhawow Radio Xurriyo lama ku dhawaay ajandayaashii aad maanta isla soo qaadeen ee aad ka duuleyseen ee aad doonayseen inaad ku taabagelisaan ama aad ku hawlgelisaan ba shacabka Soomaalida Ogaadeniya ajandayaasha maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa walan marka hore inaan horta bal annaga culimada ahaa si toos oo khaas aan iskaga barano dadka marka labaadna inaan maamul geesi intaan samaysano dalad culimo ay ka kooban tahay aan ku hogaamino dadka si aan u gaarno yacni meel sare oo u noqono dadka hogaamihiisa ijtihaada aad bay umahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar kamid ah culimada Ogaadeniya ee ku dhaqan magaalada Garissa oo khadka telefoonka Radio Xurriyo uga waramayay shir ay maanta ku yeesheen magaalada Garissa oo ay kaga arrinsanayeen sidii ay u garab istaagi lahaayeen halganka xaqa ee loogu jiro xoreynta Ogaadeniya wixii maanta jira iyo warkii minidka soo dhacay Xurriyo waa mahuraane maqlo ka dhageyso talooyin miisaan iyo barnaamijyaadu weyn Xurriyo waa mahuraane maqlo ka dhageyso xikmadaha murtida iyo suugaanta miida Xurriyo waa mahuraane maqlo ka dhageyso dadku waa mahadsheen waliba waa ka maqsuudeen Radio